Sporty. waxaa magaalada Amsterdam ee caasimadda waddanka Holland si habsami looga socdo ciyaarihii AFT ee soo qaban qaabin jirtay hay'adda Hirda. ciyaaraha Hirda ayaa sanadkan waxaa ka soo qayb galay 24 kooxood 16 kooxood ayaa ka socota waddanka Holland halka 8 kooxoodna ay ka yimaadeen qaaradda Yurub. ciyaaraha Hirda ayaa sanadkan waxaa lagu casuumay siyaasiyiin aqoon-yahano iyo waliba dad magac ku leh sportska Soomaaliyeed. iminkana daawadayaal waxaan gudaha u galeynaa hoolka si aan wax uga weydiino dadka ka soo qayb galay. waxaan la taaganahay Yuusuf Maxamed Cabdi Yuusuf oo ah rugcada sportska Soomaaliyeed qayb muhiim ah uga jira dhanka kalena ah qoraa ka faalooda sportska. Yuusuf ku soo dhawow Puntland TV waxaad ka mid tahay marti sharafta ka soo qayb gashay ciyaaraha Hirda ee 10 sano jirsay. sidee ciyaaruhu u socdaan؟ waa mahadsan tahay runtii waan faraxsanahay in maanta waraysi leeyahay TV-ga Puntland oo aan rajeynayo in uu Soomaaliya dhan gaaro mustaqbalka. waxaan joognaa Amsterdam ciyaarihii Hirda sanadkii 10aad ayaan futsal ku qabanay meeshan basketball iyo isdhexgalka bulshada. waxaa ka soo qayb galay sanadka 24 kooxood 16 kooxood oo ka yimaadeen Holland gobolada degmooyinka 8 wadan waxay ka yimaadeen Yurub Scandinavia Jarmalka iyo Belgiumka iyo Switzerland iyo England. koox Moroccan ah ayaa ka qayb galaysa ciyaaraha sanadkan markii ugu horeysay abid. arrintaasi maxaa looga dan leeyahay? maadaama aan futsalka muddo dheer qabanay waxaan ka sameeyay qolqaran Soomaaliya matalo ka dalban ciyaaraha Faransa hal ciyaarna Faransa Morocco Cameroon Tunisia ama ciyaar wadamo badan la ciyaarnay. waxayna saamaxday in aan xiriir dadka iyaga ah sanadkan waxaa ku casuumay kooxda xulka Morocco oo ciyaaraha ka soo qayb galay. laba ciyaar ay ciyaareen shalay waxay la ciyaareen xulka Yurub aan ku xulnay maanta waxay ciyaarayaan muxuu ahaa xulkii Holland oo aan la ciyaarsiinayo anagoo doonayna ciyaartoyda meesha ku xulnay Soomaaliya matala ciyaaraha 2015 lagu qaban doono wadamo badan oo caasimad ka haysta Ruushka Portugal iyo Morocco. inaad booqan doontaan deegaanada Puntland dhawaan si aad arrimaha sportska ee deegaanada Puntland qayb muhiim ah uga qaadataan. bal faahfaahin naga sii arrintaas. kilka Puntland ee leedahay UK ayaa nala shiray wuxuu naga codsaday inaan sportiga maadaama shaqo ka shaqeynaayo macallimiinta iyo bashiguray inaan caawino dalkii runtii waa isku afgaranay markuu madaxweynaha ka timid wala kulanay wixii uu sheegnay kooxarna anaga inaan caawino wasaaradda waxbarashada sportiga aan ka bilowno waxbarashada dhalinyarada yaryarka ah dugsiyada sare ilaa jaamacadaha oo sameeyay manhajka sportiga insha Allah dad badan oo sportiga ah oo dibadaha ka iman doona jiro Canada kale Mareykanka kale Yurub oo voluntary ka shaqeyn doona seminar ka sameyn doona iyo qaabkii oo sameyn lahaa insha Allah. waxaan rajeynayaa dadka gudaha inaan ka soo saarno dad shaqadaas qabto waa inay joogaan oo ognahay insha Allah wixii karaanka u qabanayna saa jeelin waxaa sportiga ka naqaano iyo xiriirka caalamka lana inaan soo xirno oo aan tusno waxay Puntland sportiga laga xiiseeyo jecel yahay runtii macallimiinta kale oo hadda isku yahay qaabkii u sameyn lahaa sportiga oo laga bilaabi lahaa meesha ugu hooseysa ilaa meesha ugu koreyso maamulka oo meesha ku kulmana waa la hadalnay oo farxsan yihiin. anaga kulli waxaa waqtiga fasax haysano oo maadaama intaan joogno waxaana inaan markaan wadankii tagno aan dadkii la hadalno aragno waxaan qaban karno kadibna aan sii horumarino insha Allah. waxaan rajeynayaa inaan anagana ka faa'iideysano iyagana ka faa'iideystaan. aad baa u mahadsantahay. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu maanta aan u joognaa ciyaarihii xilliga qabaha oo ay qaban jirtay hay'adda Hirda oo AFT Amsterdam Futsal Tournament. sanadkan waxaa ka soo qayb galay 24 kooxood 16 kooxood oo ka yimaadeen dalka Netherlands halka 8 kalena ay ka yimaadeen Yurub afarteeda gees. waxaa sanadkan ka soo qayb galay dad siyaasiyiin iyadoo oo sanadkii horena uu naga soo qayb galay madaxweynaha dowladda Puntland. sanadkan waxaa iyada marti noogu ah guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir isla markaasna ahaa duqii hore Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo ambassadorka u fadhiya midowga Yurub ambassador Ali Fiqi
waxaa sidoo kale ciyaarahan lagu cusubay ama inta badan xooga saara dad magac iyo maamusba ku leh isboortiga Soomaaliyeed oo ka mid yahay qoraaga weyn ee website-ka SSB media aan idhaahdahay halmahada kuma jiro oo imika garabkayga taagan Yuusuf Maxamed Cabdi Yuusuf oo inta badan ka faalooda ama turxan bixin ku sameeya dhinaca waxaan filayaa sanadkan wuxuu u socdaa Puntland si uu uga hormariyo isboortiga. iminkana waxaan la taaganahay macallin John oo ka mid ah bahda isboortiska Soomaaliyeed qayb muhiim ah isboortiska Soomaaliyeed ka soo qaatay macallin John ciyaaraha hirda ayaa socda bal warbixin naga sii sida ciyaaraha hirda u socdaan aad iyo mahadsan tahay waxaan kaloo mahadcelinayaa TV-ga Puntland oo runtii igu casuumay inaan waraaqan ka ilaahdo hirda aan waxaan ka tirsanaa horta bahweynta hirda muddan imanay ciyaaraheeda haddaan xitaa aanan jooginna waxaan يعني قيب كجرا كردا وعي جرستي هذا وسن في العتبنا جريتان في القيردا مر يهدو على أساس إني سمفل قسم يسوع دولة الصومالية كارهان لنا على برشلة لنا عفماتك يدنا عرمات الشدة كارهان دومركا يو دت كمارتي كل بن دولة كردا آدي لنا عسكر وقعتي حدنا وحاي موقعتي فهذا باليرة وضن كان كبسان تهاي طبعا باهي حق عرمها مشدة وباليرة دي سبورتو مجرد بحنا هاي يعرف مركا قريت بحي كيف فكرت هذا سيدي متاجر العيد عرمها باليرة وضن كان هولند كبلا وقتي سبورتو يعني إني تاجران ومتاكليان لما يرى هولند لجان ومركورين وسميان إني قرمو كريان إني يعني كساعدا سيدي كل ما سبورتو سمين عين في بلدي أي قرطي وهي كعزومين دولة دبلتة ما تحرموا الظاهر ده إني عن عرب كرهير وهي قاعدة كوعي قرن كتاجرتو كوحيه سومالي ودن جيسو قلب سبورتي يعني قيبة بدنو كميدا كوحا قرنك الملاك عياري تاوغيروين قيمة جيستو وعكالو كسو بحي أو حيابي كسو بحي كم النقضي إن تبتل كان بيراهو FT أما أمستردام فوتبول فوستر تورنمنت ونقضو وهذا جيستدي سنة كي طوانات دليل كسب بحري أما فكرة وحن بقاري إن مثلاً سوماليا أو راي سمكة كلية هي كم مثلاً كرتمدي أفريقيا كرتمد يوروبا أو إذا ماذا كرتما لغة بتاعي قارب المجلس عيارين عيارين فرنسا وكل جود كل مثلية شرقية مجا المدة الصومالية مالكستان شرف يبغادين يسودوين حداف لوسو كلا كل مية waxaan noo muuqatay in boqolaal dhalinyaro ah ay ka qayb galeen ciyaarahan qaabkoodna ay ka yimaadeen wadamada Yurub oo dhan wali waxaan noo muuqatay koox ka socota wadanka Morocco oo ciyaaraha ka qayb qaadanaysa maadaama intaas oo dhan oo dad uu isu keenay isboortiga ma looga qayb ma siyaadin karaa nabadda Soomaaliya si lagu raadin karaa isboortiga haddaan anigu yani runta sheego waxaan maleynayaa qof yar dhamihi waayo aragnimo Soomaalina weligii ku noolaa Soomaalina waa la noolaa waxaan u arkaa aniga Soomaalidu meesha meelaha qaarkood ay xalka ka doonaan ama ay ka doonaan inay ku xaliyaan mashaakilkooda inay tahay meeshii khaldanayd badanaa waxaan moodaa markii Soomaaliya nabadda lagu doonayo odayaal yani wada ciroobay ama aniga ama iga sii daran ayaa laga doonaa nabadda waxay ku jirtaa dhalinyarada haddii la rabo Soomaaliya inay nabad ka dhalato وعند دليرة التحكيلية سومالي نبض الجبتة دليرة مركا دليرة وإن ليسوا تصار دليرة ليسوا معانية برتقوا آلات كم إذا آلاتها اللي أديك سنة نبضية الصومالية معي وحتصال في عنكا أنت ما أنت عيار مقالة عيار هي دوتني وحوي معي أفريقيا لا تنقل أفريقيا لا تنقل هدي كنا آتكوا بقى كسوة أو كواحكستي ولا تنقف marka haddii aad eegtid 24 waa 480 qof oo ciyaartay imisa kamida ayaa maanta ay ku dhici lahaa inay galaan ama dembi waxay sharciyad ama dembi xaq alle yani falkiis ama dembi oo ka badbaaday oo meesha jooga oo sportka ciyaaraya waxaa soo raacay in laba kooxood oo gabdho basketball ciyaaraan waxaa soo raacay in koox Morocco oo noo marti ah oo maantana koox la ciyaartay عياريسا شريتنا كوحلا عيارتيني وحوي دكاسو دم واسوالسانيان إنه واحد على شلي أو هذا آد إيطابتة
in laba kooxood oo isla ciyaaraya Soomaaliya laba wadan kala yimid iyo garsoore labada kooxood koox afkeed aan noqon ay isu yimaadeen dhibaatada waxay ka taagnayd markii garsoore sida kooxdan aan afdhaj oo man ula hadli lahaa waxaa la gaaray in garsooraha la yiraahdo kooxdan af-Holandeeska taqaana la hadal kooxda kale u tarjumaysa marka waxaa arkaysaa maarka sportigu inuu runtii ku jiro dadka isfahamsan isu keenid walaalayn laakiin muxuu ahaa ama iga soo baxdo oo intay u jiri lahayd wada intii aan dawladda arkay oo dawladda la sameeyay ilaahay ha u naxariistay wasiirkii ku dhintay isagoo wasiirka sportiga aan ahayn waxaan u arkaa in aanay u hagar bixin inaanay u hagar bixin maxay sportiga Soomaaliya qaybtii uu ka lahaa bulshada Soomaaliyeed aan siin waxaan rajaynayaa in meel kasta oo Soomaali ah dhalinyarada sidkooda waxa ay ku helayaan in la isu keeno in sportiga loo hirgeliyo sidoo kale waxaan la taagnaa Maxamed Daawud oo kamid ah dhalinyarada barnaamijka hirda daadihineysay live streamka maxamed ciyaaraha sidee u socdaa توفيق عيارة سورة أكسن في سورة ما أنتم مالكي لبعض وحفر بدنا نسوق بلاي مالكي سورة هولا كاتو سورة بدنا هولا بنيس كلا أحسن سورة سورة مليئة حفر بدنا نسوق بلاي سادة ركضي فنانين سياسيين سهل سرعة صبر نومي صرت إن بقولنا اللي رأي قصة الكلام عيارة ولو قف إذا سكر نبض الصومالي ما دام بقولنا اللي رأي سافر قوم ولا يسوق horta waa wax meesha ku jira sportiga inaan ku xaqsiino sportiga farxad iyo sabab iyo caawinina waad aragtay xaqo farxad ay tahay in ay ka soo qaybgaleen dadka yaryar oo teenager mustaqbalka kule kubadda cagta sidoo kale laga yaabay qarankii ay berito wax tari doonaan ama kooxaha Yurub ka dhisan sidoo kale waxay kaloo kaga faa'iideen dhalinyarada luqadii Soomaaliga waxaad arkaysaa dhalinyarada kala socda Finland iyo Denmark oo kale ama Sweden iyo Holland oo aan isku luqadda ama wadanka ay ku soo barbaareen luqadooda aan isku mid aynan ahayn taasina waxay ku qasabtay markii dambe inay ku sheekaystaan Soomaali ay isku cariiriyaan luqadii isku dayaan ay taragelayaan sidoo kale contact ay suubiyaan qalbo telefoonadii Facebookyadii waxyaabihii social media isdhexgal badan inuu bulshada aad baa uma salaam magacaaga noogu bilow waxaan u malaynayaa waxaa ka mid tahay bahda sportska Soomaaliyeed ee gabdhaha ciyaaraya basketballka macallin John sportska Soomaaliyeed ma looga faa'iideysan karaa nabadda anigoo horta xawkiin ka imid waddanka Jarmalka sportiga nabadda lagu faa'iideysan maanta waxaa garabkayga joogay macallinkii soo tababaray John maanta aniga soo tababaray waxaan hadda ilmahan aan tababarayo isaga macallin soo tababaray edabta biiradka alas isaga ninkii bara inuu yahay wuxuu ku sheegay sportigu inuu yahay horumarka qof kasta caafimaad ahaan wadani ahaan kulli sidoo kale maxaa laga faa'iidi karaa kulankan ay isugu imaadeen boqolaalka dhalinyarada waxaa laga faa'iidi karaa intaasoo dhalinyarada intaasoo wadanka horeeyay inay isku barteen af Soomaali lagu wada hadlayo fikrad ahna waa maxay Soomaali ayagoo aan is aqoonin ayaa haddana waxay isku dayeen inay isfahmaan legend Magan Daahir oo ka mid ah ambassadorada Hirda ayaa nala jooga Magan Daahir sidee ciyaaruhu u socdaan si wanaagsan u socdaan weliba waxaa igala sii qiimo badan kulanka aan la kulmay hooyadii sportska iyo aabihii sportska Maxamed John waxaan la ag joogo si wanaagsanna way socdaan mashallah baa mahad mar dhaweyto noo sheegtaan si gaar ah isku wareysanayna inaad wadankii safar ku tagi doontid bal warbixinaga si safarka wadanka aad ku tagi doontid wallahi marka horeysas aniga waa laga horeeyaa waxaa jira inaan hamiyad yani in la hormariyo sportiga soo wadanka oo dhan ujeedda ah dad badan isku afkarteen waxaa hadda bishii 28 magaalada London nooga imaanaya nin la yiraahdo Maxamed Ali Xigsi oo la yaqaan Mudoobe oo la socdo Mahad Aadan Marayare Allah yarxamo Mahad Cabdirasaaq Aadan Marayare oo dalka Qatar uu ka raacay Maxamed Sheekh Muuse dalka Ethiopia waxaa uga imaanaya Ali Amin Xaaji marka waxay rabaan inay magaalooyinka Puntland ilaa in qalqayo dhinacyada inay u tagaan inay
basketball seminar ah oo asaasi ay u sameeyeen level 1 oo kale ah taasoo ah xadatayn iyo in dadkii sportigii lagu wacyigeliyo lagu soo siiyo la bilaabo in lagu abuuro yani mirihii sportiga kaas aan jecelnahay in aan noqdo mid waddanka oo dhan ka qaybgala marka tan waa talaabo tijaabo ah waxaan jecelnahay haddana ilaa yiraahdo bisha August bilowgeeda ama July dhammaadkeeda in erga kale oo dhinacyadaas mara oo hawl ka sameeya wacyigelin sporti haddana ay ka dhacdo inaga oo sugayna intii ugu dambeysay yani barnaamijka faahfaahintiisa ka sugayna dhinacyada Soomaaliyeed marka ama Puntland gaar ahaan oo rabta casuumada noo fadhisay marka haddii arrintaas noo soo tagasho waxaan jecelnahay inaan qaybo ka mid ah Soomaaliya oo badan aan geyno oo ay noqoto dacwadii nabadeed horumarintii sporti isu keenintii dadka qaybtii annaga nagaga aadanayd waxaana sidii horeba aan u arkaa aniga sportigu inuu yahay qaybta ugu weyn dhalinyaradu ay tahay muhiimad ugu weyn ee mustaqbalka Soomaaliyeed waxaan filayaa in dadka reer Puntland ay u diyaar garoobi doonaan soo dhaweyntaas aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa annaga iyadoo arrin weliba aanay dhicin waxaan jecelnahay in aanu Puntland iyo meel kasta oo Soomaaliya ay u noqoto tijaabo iyo ay u noqoto wax lagu hirto oo bilaaw ah haddii dadku aanay arkin meel inay ka bilaabeen ma garan karaan laakiin tan waxa weeye in la bilaabo abuurkii geed laga beero geedahana meel kasta laga beero si ay kayn caafimaad qabto oo sporti ay waddanka oo dhan uga dhawato aad baa u mahadsantahay iminka waxaan la taaganahay maxamed ismaaciil oo ka soo mid noqday sportkii barsimaadkii Soomaaliya qaranka Soomaaliya oo soo ciyaaray iyo kooxda horseed maxamed ciyaaruhu way soo dhamaadeen sidee u aragtay بسم الله الرحمن الرحيم تعال بعد كم هذه فكرة خالية سيسين هدان دب بسون وده سؤال شهدا يا راح يتدوى سنة دورة اللي تبغى تروحي أنا كل يبغى أنت هروي دافت لك اللي إحنا سنود قدام بيجي وانك سوق يبدلي بحضة هيردنا كم يبغى يروحي مركا مانتنا وأنا سنة دورة اللي تبغى وأنا مانت سوق الجبوبة يعني يراها كل بس سنة واحد مدة سنة كده بيسبع أنا كسي في عنانيسو ما كان صوب بلعبي يعني من شري لحسن وقت اللي شو سنة ودي أفر هي سنة كهرباء بعد اللي عيقو سنة بس سنة كده بيسبع مدة إني ويا أرجع مدة تسوي عنانيسو والخلطات في سنة كهرباء بعد اللي كسي في سنة سنة كده بيسبع مركا محنا تجينا يا سنة كان كل بقى أنا أدبر وجهري وأنا في عنتهاي دكتور إن غالي ويان مسؤولين بدن بنا كسوق يبقى سنة كيس أنا عفمات قبلنا إني أساس كسي في عنتهاي لا كبر إن شاء الله. أدبر ما سنة وحنا كسوق يبقى أن يرى بقولات يقولون مدح يمرت الشرف أنت صعد على حسب كان سبورت ما دام السياسة سبورت يقدر أنت على ممكن مني سبورت كم لوجو في أي سنة نوت سومالي. والله وروح السياسة ده سبورت ده ذاتك السياسة سكوه السنة الدنيا ده نويك دعدي دولة بدر مسكوه السياسة ده وحمدية سبورت ده يعني وأنا واحدة رنتي سبورت ده إنه ذاتك مسكوه كنا مكان الجيو وحنا إلهي كبر هي إنه أنا كان ساسو كلنا نقطة إنه سبورت ده بعد ما ده ذاتك الصوماليين قاعد بتشعلين سبورت قاعد بتشعلين وين قد نو بتشعلين حتى لو بتشعلين إنه إلهي فرج نو كانوا وسبورت ونقضه كي ماتا نحن حادين لها عم بكيني شيسي لها عم بدك كل فوق كيش بكيني لها عم بقول لها في أي صومال لما دي لي يقاني إنه صومال طيلة يكبرون إن شاء الله. هل سؤال ترى يمكن جدا برسمات في الصومالي وحل عياري قبل الصومالية بس السنة دي قدام بالسلام عيار اللي واحد شفت اللي هو قبطي قبل هذا بنتلان المجال عاصمة جروي اللي هو قبطي واحد بدنا يا لقى فايدة وقلال لنا يرى يا لسكان أنت سمحة قدر الحيد حاس أورا الحيد كل رجالنا لاسي ولا الله قبطي عياري قبل الصومالي أنت عياري قبل الصومالي وأساس كيوين أساس قرنتي ولي قد نواجهتي aniga bamaahan annagii dadkina ugu horeeyay iyo kuwii naga dambeeyayba waxay ka soo bilaabeen gobolladii ka soo bilaabeen sababtoo dhulkeena waa weyn yahay qoloba meel bay ku nool yihiin runtii marka la yidhaahdo koox walba ama gobol walba ciyaartooydooda ha keenaan geeska kale ninka ku nool ma ogaan karno lamana arkayo lamana yaqaano
laakiin markii chance loo siiyo isagoo gobolkiisa matalaya la keeno caasimadda Soomaaliyeed ciyaartooy badan baa runtii badan oo aniga gurukeyga ahaa ayaa qaranka Soomaaliyeed looga faa'iidaystay shalayna waxay ahaayeen ciyaartooy gobol naadiyaalkii baa qaatay ninkii fiicanay markii la keeno naadiyaalka meesha ka dhisan baa qaadanaya naadiga markuu ciyaaro haddana ninkii fiican ku hada qaranka Soomaaliyeed baa looga faa'iidaysanaya haddaan dib ugu soo noqdo tii ugu dambeysay garwa lagu qabtay runtii anigu TV-gaan joogay inta ciyaaraha joogeen xataa barnaamijyo laafi aan ka hadlay oo London markaan joogay oo exact markii socotay ciyaaraha garwa kadibna maana arkay runtii waa la joojiyey ilaahay waxaan ka baryayaa amba dadka mas'uuliyiinta waxaan kula dardaarmay anigoo ah oday isboorti amba ciyaartooy maalmaha ka mid ah qaranka Soomaaliyeed ka mid noqday amba maxaafil badan oo caalamka Soomaaliyeed uu waday in ay dib loogu soo celiyaan ciyaaraha gobolada walba orokeysta hadda waa la qaban karaa in xitaa haddii inta lagu qabto sanadka dambe magaalo kale lagu qabto laakiin inaan la joojin sababtoo ah waa laga faa'iidaysanayaa horena u marana insha Allah waana mahadsantihiin kana maanta sidaad u jeedaan runtii waa maalin weyn halka waxaa ka socota arrin runtii activity ama howl aad iyo aad muhiim ah oo ah arrimihii dhinaca isboortiga oo sanadkiiba mar ay ururka hidda qabataabiso maanta toban jirsaday dad badan oo Soomaaliya waddankooda ka kala yimid ka soo qayb galay runtii waa arrin aad iyo aad qurux badan waxa ugu muhiimsan in dhalinyarada Soomaalida ah oo aan ahayn kuwa holan ka yimid oo kaliya xataa waddanka dibadiisa ka yimid inay halka ku kulmaan oo ayaga laftigooda isbartaan waa arrin muhiim ah tan kale isboortiga runtii waa aad iyo aad maaragtay muhiim ah ama waxaa la dhihi karaa waa quwad ugu fiican waayo waa arrin suurto gelinaysa inay dadku mar wada farxaan ama ay mar wada xanaaqaan marka inta ururka hirda inta qabsaad iyo aad ku mahadsan yihiin anoo ku hadlaya magaca IFSA dalada guud inaan ka soo qayb galan aad iyo aad aan ku faraxsanahay idinkuna waa mahadsantihiin rag howsha بسم الله الرحمن الرحيم halkaan waxaan joognaa Amsterdam waxaan ka imid Ingiriiska waxaan wada koox gabdheed oo basketball ah maadaama maxaa sportska hore aan ahay gabdhihii hore oo qaranka haddana gabdhihii qaranka oo dooxa soo saaray haddana waxaa habi ku ahay oo ku faraxsanahay maanta guusha aan gaarnay oo maaragtay aan koobka ku qaadnay taasaan maaragtay mahad ilaahay ah waxaana jecelnahay mar kasta oo Christmaska gaalada ay samaysanayaan waxay qabataa hirda qolada hirda la leeyahay mahad ilaahay ka soo ayaga leh waxay ka leexiyaan carruurta Christmaska ee ciyaalka baranayaan maadaama dad muslim aan nahay waxay u qabtaan ciyaaro sports ah football ha ahaado basketball ha ahaado laakiin maanta aniga maadaama aan raayay oo ku raayay maxaa lahaa bundooyin fiican adiga waxaan maleynayaa konton oo ku raayay kooxda kale waxay lahaayeen 12 something like that marka waxaan leeyahay guul reer Puntland waa idin salaamay salaam calaykum sporty But like Hannah, goal,
gol ku dhaliyay baleeg baleeg ugu ka baxaya baleeg labadee isu soo harto midkood koobka hantiyey labadee isu soo harto midkood koobka hantiyey la tagayaa hoygooda la tagayaa hoygooda la tagayaa hoygooda la tagayaa hoygooda agaasimaha guud ee hay'adda hirda Dictoresa Faadumo Faarax oo halkan lagu guddoonsiin doono abaalmarin qaali ah oo runtii ay mutaysatay. Dictoresa, welcome. Faadumo Faarax runtii waa maamo u taagan inay wax badan ka qabato horumarinta dalka Soomaaliya, horumarinta wadamada Yurub, horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan. runtii waxaan leenahay thank you idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad dhihi doontaan thank you so much. runtii dictoreysada ma aysan ogeyn abaalmarintan in la guddoonsiin doono laakiin waa abaalmarin ay ugu talagaleen dhalinyarada ka midka ah guddiga qabanqaabada ciyaaraha Hirda Amsterdam Futsal Tournament. runtii waxaan u garanay inuu abaalmarintan guddoonsiyo Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil. aad iyo aad baad u mahadsantahay Saalax Xasan Cumar runtii sidaad u sheegteen ba Marwo Faadumo intaas oo qof iyo waliba in ka badan ba inay oo waliba Soomaaliya ku nool ba inay ka farxisay inagoo dhan waa wada ognahay saxaafaduna
waa dhagsannahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada AFT oo waliba heerka maanta aanu joogno soo gaarsiinay waa Saciid Xandulle iyo waliba Cabdinuur iyo waliba Saalax Xasan Cumar waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay marti sharaftii oo ugu horeeyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxaan kaloo u mahadcelinayaa danjirihi Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Dr. Cali Saciid Faqi waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Marwo Faadumo Faarax oo runtii aanan intaan aysan naga mutaysan in ka weyn ay maanta ahaan lahayd laakiin aanu raali gelinayno Marwo ku soo dhaweeyo waa maasantiin horta aad iyo aad u maasantiin barayskan wuxuu ahaa mid aniga aanan ogeyn laakiinse waxaan leeyahay idinka barayskan mudan waxaan rabaa dhammaan inaan u mahadceliyo dhammaan kooxaha ka soo qayb galay ciyaarahaanayto kuwa ka imaaday Yurub dhalinyaradii kale oo ka qayb gashay dadkii fiirsanayay dhammaan dadkii noo ahaa martida gabdhaha basketka dadkii Ingiriiska nooga imaaday qof walba oo nagala qayb galay waxaan leeyahay waa maasantiin waa arrin aan ka wada shaqaynayno ma aha in barayskan waxba ima aha aniga waxa maanta wax fiican in aan maanta haysano dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku xiran oo berina contact si sameynayna Soomaaliyeed waxay tiraahdaa waari meesida war ha ka haro ma noolaanayno laakiin nin walba waxa ka hari doona waxa uu wadankiisa u qabtay marka waxaan leeyahay haba yaraatee waxa la qabto wadanka waxa loo qabto waa maasantiin